maanta halkan waxay bixinayaan bustayaal qadiifado ama caws waxa loo yaqaano iyo jaakadii dhaxanta waayo waqti qaboobo ama boorma lagu jiraa waqti dhaxamo badan ay jiraanin waxay tiri ururkan Awdal Dhiif Charity waxa la aasaasay 2019 isagoo oo markaa aan ku aasaasnay dhowr qof oo markaa iska dadka dhigaha naafada ka ah waxaan maanta jeclaysanay inaan walaalahayaga nolosha ay ku adagtay dadka dhigaha la maxay ahaanay baahiyaha gaarka qaba inaan guddoonsiino amba aan caawino maadaama ay naga bahdayada ay ka mid yihiin dadkayga dhigaha qaba ururka samafalka dhagoolayaasha gobolka Awdal ayaa maanta deeq isugu jirta bustayaal caawiyo iyo koodhadhka dhaxanta lagaga kaashanto u qaybiyay qaar ka mid ah dadka maqalka naafada ka ah ee gobolka Awdal deeqdan ayaa waxa iska kaashaday xubnaha iyo ardayda ku bahowday ururka waxaana ugu horeyn ay bulshada ay ka codsadeen in ay soo caawiyaan oo ay taageeraan ururka maqalka naafada ka ah ee gobolka Awdal أنا وحناي قدومي Awdal Dhiif Charity magacay waa Hodan Cabdi Cali waxay tiri ururkan Awdal Dhiif Charity waxa la aasaasay 2019 isagoo oo markaa aan ku aasaasnay dhowr qof oo markaa iska dadka dhigaha naafada ka ah waxaan maanta jeclaysanay inaan walaalahayaga nolosha ay ku adagtay dadka dhigaha la maxay ahaanay baahiyaha gaarka qaba inaan guddoonsiino amba aan caawino maadaama ay naga bahdayada ay ka mid yihiin dadkayga dhigaha qaba waxay tiri ururkan waxa weeyaan waxa iska taakuleeya dhammaan Awdal kaliya ma jiro wax naga organisation wax maxay ahayd wasaaradda oo dawladda kamid ah oo naga caawiya ma jiraan annaguna waxaan ahay arday wali hadda jaacadii ku jirtay qaar shaqeeya bas kugu jira marka wali ma hayno bidaheen wax qacan naga siiyo oo maanta hawshaasi annagu bas garanay oo walaalahayaga dan yartaa isnid kaga farxiya kaliyana maanta ma ahay marar badan way jirtay oo nusaa sameynay laakiin muuqaalkani maanta waxaan ugu talagalnay in maxay ahayd dadka meel walba ay joogaan Soomaaliyeed walaalahayaga meel walba jooga in ay nala jeclaystaan oo naga garab istaagaan caawinta dadka dhigaha la hadli karin qof u hadli karaya oo qof aan wax weydiisan karin ay noloshuna aad iyo aad ugu cakiran tahay aynu jeclan intan maanta aanu ku siinaynaa waa wax iska yar waa bustayaal iyo caawiyaal iyo koodhadh de kulay inta iyo wax ka badan oo rajeynaa inaan walaalahay u qabanno intaan ku garab istaagi karno waxaan doonaynaa oo aad ugu codsanaa bulshada Soomaaliyeed inay naga garab istaagaan oo ina caawiyaan waxaanu halka u joognaa inaanu qaybino xoogaa yar oo agaba oo ay bixiyeen ama iska ururiyeen walaalahayaga maqalka naafada ka intooda jaamacadaha dhigata runtii waxa maanta la qaybinayay waxaanu doonaynaa insha Allah in mustaqbalka dadkan ay qabtaan waxa aad u kala duwan waxaanu rajaynaynaa insha Allah balde walaalahayaga Soomaaliyeed ama reer Soomaaliland ama cid walba oo ajarka jecel ama khayrka jecel inay dadkaas gartay inay walaalahooda kale ee baahiyaha gaarka qabeen waxba haystan inay caawiyaan inaad idinkuna soo caawisaan oo soo taageertaan cid caawimo la weydiistay Ilaahay baa u horeysa laakiin walaalahayaga Soomaaliyeed ee fiidiyogan daawan doona xariijinaya insha Allah bal dadkan reer Awdal ama dhalinyaradan reer Awdal ee teamkan maqalkooda xadan yahay isku yimid ay garteen walaalahooda kale inay caawiyaan maanta halkan waxay bixinayaan bustayaal qadiifado ama caws waxa loo yaqaano iyo jaakadii dhaxanta waayo waqti qaboobo ama boorma lagu jiraa waqti dhaxamo badan ay jiraan